maanta oo kale waxaa geeriyootay Faatimatu Zahraa oo ahayd gabadhii Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Faatimo waxay ahayd in qabowsigii Nabiga qalbigiisa uu jeclaa, waxay ahayd ubixiisa. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu wici jiray yaa ummu abiiha, hooyadii aabaheeday. halkaas uu qadarin iyo qiimeyn uu ka geeyay Nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhiisa. sidaas ayuu u jeclaa Nabiga. markay u soo gasho wuu u istaagi jiray, kadibna wuu dhunkan jiray, gacanta intuu ka soo qabto ayuu soo fariisin jiray agtiisa. Aisha radiyallahu anha waxay leedahay: ma ra'aytu ahadan kana ashbaha hadithan wa kalaman bi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam min Fatima. maanan arkin qof uga ekaansho badan dhinaca hadalka iyo sheekada rasuulka Fatima. Fatima radiyallahu anha waa xaaskii Ali bin Abi Talib iyo hooyadii Al-Xasanayn. waxay la soo halgantay Ali dadaal iyo halgan aan wada garanayno. gacmaheeda ayay wax ku nadiifin jirtay hawsha guriga ilaa gacmaheeda adkaadeen oo ay saameyn ku yeelatay. kadib Faatimo iyo Ali waxay u imaadeen Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayagoo u dhib sheeganaya. waxay rabaan qof u khidmeeya. Nabiga wuxuu ku dhahay: ma idin sheegaa wax idinkaga khayr badan qaadimka? haa, noo sheeg ayay ku dhaheen. wuxuu ku dhahay: markaa seexanaysiin oo firaashkiina tagtiin 33 jeer tasbiixsada, 33 jeer Ilaahay ku xamdiya, 34 jeerna Ilaahay weyneeya oo Allahu akbar dhaha. taas ayaa idinkaga khayr badan khaadim. halkaas waxaan ka qaadan karnaa cashir aad u weyn. wuxuu u tilmaamay Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u tilmaamay inay kaalmeystaan awoodda ruuxeed oo ah xuska Alle. Faatimo markay u soo gashay Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo sakaraadaya, wuu u soo istaagi waayay. markaasuu u wacay, way u soo dhawaatay. wuxuu si tartiib ah ugu sheegay 2 arrin. markii koowaad waxbuu u sheegay, way oysay. markii labaadna waxbuu u sheegay, way qososhay. waxaa lagu dhahay: Faatimo, Nabiga muxuu kuu sheegay 2 jeer, marna aad ooyeysay, marna aad qososhay? waxay dhahday: markii koowaad wuxuu ii sheegay in xanuunkiisaan lagu oofsan doono, markaasaan ooyay. markii labaadna wuxuu ii sheegay inaan ahay qofka ahalkiisa ugu horeeya ee asaga gadaashiis geeriyoon doona, markaas ayaan qoslay. sidaas ayuu Nabiga ula tacaamuli jiray Faatimo. markuu dhintay kadib way murugootay murug aad u daran. markii la soo duugay Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ku dhahday Anasow, naftiina ma waxay idin siisay inaa Nabiga carada soo dhigtaan? Anas wuxuu ku dhahay: udugii rasuulkii Allah, hadaa awoodi lahayn inaan dhigno samada iyo dhulka meel u dhaxaysa waan samayn lahayn. laakiin Nabiga quraankii ku soo degay wuxuu ahaa: minha khalaqnaakum wa fiiha nu'iidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa. Nabiga wuu dhintay. Faatimona 6 bilood ayay ka dambeysay. 3 Ramadaan sanadii 11 hijriga ayaa la oofsaday radiyallahu anha. wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.